كلن كأنن وحاو كساب سيئة سيدة قرب الله إعلامي محاضرة مواكبة هي بين منهج السلف والحزب السلفي وشرح دونا إن شاء الله تعالى أسباب تكنتي إن المحاضرة قبلنا وأرجيني إن شاء الله تعالى إن السلسلة نقندونس تقريبا حلقات بدل أي نقندونتها أي للو حلقة يسد حلقة معلوماتك عن رو إن شاء الله إن الكتبيو كجمع بوجنكوا حلقات استجابت جوي نقندونتها إن شاء الله تعالى sababta keentay muxaadaradii waxay ahayd wuxuu soo guuleeyay saddex usbuuc ka hor bay ahayd baan u malaynayaa su-aal lay weydiiyey barnaamijkii khamiista iyo jumcada ee su-aalaha ayaa su-aal laygu weydiiyey ku saabsan ole ku socda ururada dacwada ma saxba mise sax maaha iyo qolo ururada dacwada si gooniya wax uga sheegaysa kadibna si kooban baan uga jawaabay waxaan tilmaamay dacwadii nebiyadu inay ambiyadu inay ahayd dacwo nidaamsan camalka jamaacigaana in la nidaamiyo oo kala dambeyn yeesho inay masale mashruuca tahay hadduu shaygu mashruuc yahay oo ay soo gasho waxyaalo khaladaada sida tacasub oo kale iyo wixii la mid ah in waxyaalaha soo galay laga saaro lala dagaalamo laakiin asalkii mashruuc ahaa inaan la burinin oo uu baaqi ahaado iyadana miisaalaan u keenay waxaan iyadana ka hadlay jamaacaadka dacwadu sida bini aadamka iyo ruuxa shakhsiga ah fardiga uu u gafo inay u gafi karaan وبالتالي wixii ay ku gafaan in la saxo loo naseexeeyo waxay ku khaldamaan madal iska jira la yiraahdo arrinkaasi inuu sax yahay ayadana waa tilmaan laakiin marka la saxayo in cadaaladana aan laga tagin hadalka lagu saxayana uu noqdo billatii hiya ahsan waxaan ku xijino intaa kadib ka dambaysiinay koox waxaa jirta iyadu jamaacaadka iyo dacwaadka waxaan u jeedaa ururada dacwadu waxqabadkooda iyo khayrkooda aan khayr u arkin oo in la tirtira ka shaqaysa tabdiicisa kooxdaasi waxaan nidhi waxay bilaabatay dagaalkii khaliijka waxaana bilaabay laba sheekh sheekh maxamed amaan aljaami iyo sheekh rabiic ibn haadi almadkhali calayhima cala almayit alraxma وعلى الحي غفر الله تبارك وتعالى له وحفظه كدبنا وحن شيخنا أرنتاسي إن وقتها باللعبتي ما يدل لو يقانو دتكو يقانان واشيغنا دتك قاركود waxaan rijaamiye u yaqaanaan qaar madkhaliye u yaqaanaan qaar salbiye jadiid ay dhahaan ayagu laakiin waxay isu yaqaanaan isku tilmaamaan as-salafiyya cadaalad baan u sameeyay oo magacyadaasi anugu ma dhihin laakiin waxa la dhahaan soo guuriyay kadibna iyagu isu yaqaanaan nolosha waxaan tilmaamay kooxdaasi ama xisbigaasi mawaaqiftiisu inaysan waafaqsanayn culimada waaweyn ee salafiyiinta ah mowqifka inaysan ku waafaqsanayn iyo meeshay mareen toona midaal waxaan u keenay inay xisbi yihiin isku xidhnaanta khaaska ka dhaxaysa waxaan midaal u soo qaatay kulankii ka dhacay magaalada Nairobi ee ay culimadu isugu yimaadeen kitaabada ku akhriyeen
keliya ujeedadeedu waxayna tilmaamo isku xidhnaan inay jirto ay dadka isaga dhow yihiin laakiin si kale loo fasiray markeedaan ka hadlayno waxaan tilmaamay xisbigani inuu axsaabta kale kaga daran yahay waxyaalaha ay axsaabta ku eedeeyaan oo taxasubka iyo tacasubka iyo tafriiq iyo tafaruq intaba inay kaga daran yihiin ururada kale ilaa dadka qaarkood ay ku magacaabeen xisbu mukaafaxati alaxsaab kadibna waxaan tilmaamay in arrintaasi u baahan tahay waqti fiican xaadaraad in laga galo in la sharxo da su-aal gaaban baan kaga jawaabahayay waxaana tilmaamay sidoo kale inay usuul ka mida usuushii ahlu sunnaha si khalada u fahmaan qaarna ay si khalada u tatbiiqiyaan oo ay dadka ugu dabaqaan usuul aan ahlu sunnuba lahaynna inay iyagu la yimaadeen intaana waa ugu daray kadibna waxaan idhi ma dulqaad badno oo markay muddo ay dadka dul saarnaadaan wax yar haddii laga yidhaah waxaan sugaynaa bal hadalkooda kolley aamusi maya sidaan sheegay noqotay oo inta ka hadashay hadda isoo gaadhay 10 way ka badan waa kelimad yar oo 15 daqiiqo ah xataa inay isu daayaan oo walba sheekh hebel iyo hebel baa ka hadlay inagoo aan iska dayno waa kari waaya marka dadka waan qaniini oo waan xuli oo maanta dhab baan ka hadlay oo waan daba joogi oo anigana wax yar markii la taabtay waa waxaan tilmaamay sawir darray tilmaamaysa arrimahaasi waa arrimihii keenay kadibna ka falcelin badan baa dhacday sanadiin tilmaamay dad badan baa ka hadlay wadaadadaas ka mid ah ilaa 10 waa gaadhayaan intaan u arkay intooda badani wax badan oo la tacliiqiyo mayna ka hadlin miska muxuu ahay yabhin iyo ilaahay ka baq iyo muxuu ahay waan ku dhaariyay iyo muxuu ahay wax noocaas oo kale aan xilmi lahayn iyo qaar iska raxaytamay iyo waxyaalaha